sida ogna heshiiskii dhaxmaray yahuudda iyo gobolka waqooyi galbeedka Soomaaliya heshiiskaas waxa ku jiray qodobkaas waxa qodob muhiim ah marka waxa rabo qodobkaas inaan kaga sheekeeyo indhahayga si dhagahaygna si fiican la soco qodobkaas wuxuu ahaa qodob la hayo heshiiskii al-Ibraahimiya mise adiyaan al-Ibraahimiya mise waxa la yiraahdo al-Ibraahimiya sa u taqaanidbo heshiiskaas dadka badan kama rahayaan wuxuu yahay ma yaqaanaan mana fahansana kala marka waxaan ku kala dhigayaa aan kaaga sheekeynayaa heshiiskaasi wuxuu yahay hadda for example ninkan oo kale wuxuu iska dhigay inuu wax ka yaqaan oo ka fahansan yahay arinta oo la hayo qodobkaasi al-Ibraahimiya mana yaqaan waxay tahay saan u hadlay waa xiriir diblomaasiyadeed oo dawladeed Abraham ma garanayo sababta loola doonanayo in diinta loola doonanayo wuxuu nooga dhigay inay tahay wax mataqaana heshiis oo ganacsi mise inuu yahay heshiis oo siyaasadeed oo kaaga dhigaya mujada Abraham Accord waa heshiis diblomaasiyadeed oo siyaasadeed heshiiska diblomaasiyadeed siyaasadeedna looguma cudur daari karo lama oran karo ninkan waa gaal muslim uu jilaayay maxaad adigu soo dhaweysatay Abraham Accord dad badan waxa ku khaldaan waxa la yiraahdaa Abraham Confin ama diinta Ibraahimiyada waxa diimaha oo in saddexda ahli kitaabka meel soo jiro magacuun baa kulmay wax xiriir oo labada ka dhaxeeya haba yaraatee ma jirto kale marka heshiiskan Abraham Accord horta gabi ahaanba ma aha mid la xiriira diin laakiin waxa weeyaan heshiis loogu talagalay in xiriirka Israa'iil iyo wadamada kale ee Carabta iyo wadamada Muslimka siyaabaha iskaashi iyo nabad ugu wada noolaanayaan ay isku kaashanayaan hadegdegin si fiican kugu kala dhigdhigayaa waxaana ku sheegayaa goorto bilowday iyo bilowday asbaabto ku imaaday iyo waxa ka dambeeyo iyo waxa la damacsan yahay ujeedkan uu yahay dhagahaagisi sanadka markuu ahaa 1987 waxaa jiray nin Masri ah oo magaciisa la hayo Said Nusayr wuxuu joogay dalka Mareykanka ninkaas wuxuu dilay nin xaqaam waxa la yiraahdaa dadkan oo diinta ma aragtay oo yahuud haysto madooda mise yani sida anaga u naqaano mashaayikh nin kamid ah xaqaam oo yahuudi ayuu dilay waa la qabtay ninkii waxa lagu xukumay xabsi daa'ima asal sanadkaas waxa dhacday in oo Falastiin dhulka Falastiin ay ka aasanto xaraka cusub magaceed la hayo xarakada Xamaas soo baxday adduunka kacay intifaada dhacday dadka yahuudi waxay yiraahdeen niyahow adiga dhulka ma lihid waxa leedahay ilaa halkaas ku laab xuduudaad hor ay joogu jirtay oo 1967 ahayd ku laab xuduudaha hore ninkan Ibraahim Nusayr xabsiga ku jiray xabsi daa'im waa lagu xukumay uu arkay in xaalad bariga dhexe kacsan tahay wuxuu yiri tan waa jaaniskan gaadayay waan ka faa'iideysanayaa dhambaal qoray wuxuu u qoray xabsiga wuxuu yiri dhambaalkan warqadan wuxuu yiri waxa u gudbisaan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka dhambaalka muxuu ahaa wuxuu yiri fiirsha yahuudda waxay ku abtirsadaan Yacquub Israa'iil Yacquubna yaa dhalay Yacquub waxa dhalay Isxaaqna yaa dhalay Isxaaq waxa dhalay Ibraahim carabtii muslimiintu waxay ku abtirsadaan Ismaaciil yaa dhalay Ibraahim soo markuu wuxuu yiri Isxaaq Ibraahim waa walaalo ilmihii oo Isxaaq waxay noqdeen yahuud yahuud sheeganayo waaye ilmihii Ismaaciilna waa ku sheeganaya muslimiinta oo Maxamed raacsan marka wuxuu yiri marka yahuudda iyo carabta waa ilma adeero oo kulligood ku abtirsanayo Ibraahim soo marka wuxuu yiri waxaan hayaa qorshahaas oo ah qorsho oo ay ku midoobayaan ee ku heshiinayaan nabadna ku imaanayso ee ku saaxiibayaan dadkan yahuudda iyo carabta ah macnaha yahuudda muslimiinta waxay ku heshiinayaan hayaa taasna waxa waa yiri waxa la yiraahdo heshiiska Ibraahimiya waa la fiiriyo waxa la yiraniyo adiga gees nooga fariiso arintu way socotay ninkan Ibraahim Nusayr hadalkiis lama qiimeyn laakiin moosan quusan marba qoray dhambaal qoray uu diray way socotay sheekada u socotay 90 la gaaray 95 99 waxa la gaaray ugu dambeyntii 2000 markii la gaaray waxa imaaday nin la hay Dick Cheney kaasoo ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka warqadii uu arkay dhambaalka horiyaha wuxuu yirniyo dambaalka meesha ku qoran warqadan wuxuu yiri waa qorshe oo aan caadi ahayn qorshahan wuxuu yiri waa qorshe aad iyo aad u fiican uu yiri marka wuxuu qorshahan wayna u sameynaa uu yiri aan ku sameynaa daraasaad qorshahan wuxuu yiri waa in loo sameeyo guddi oo ku sameynaa daraasaad qorshahan meeshan ku qoran waa yaal yiri kadibna arintii way sii socotay waa la darsaayay waxa imaaday kadibna waxa imaaday nin magaciisa la hayo William Orr yaa imaaday William Orr wuxuu yiri arintan waa arin fiican
marka wuxuu yidhi hal mar soo socono jug ma dhehayno diin cusubaa la bilaabay diinta allaha ibraahimiya la bilaabay qorshahana wadana qaata ma lahay dadku yidhi hee arrinta wuxuu yidhi waana ka soo bilaabanaa hoos dadka si u qaataan se loo soo bilaaba wuxuu yidhi horta kow arrintu waana ka dhignaa arrin oo dalxiis haye wuxuu yidhi dadka waa inaan tusinaa aan geynaa oo mataqaan dadka ay arkaan raadkii ibraahim maadaama ay dhan yihiin mataqaan ilmihii ibraahim ay aaminsan yihiin horta kow wuxuu yidhi waana ka soo gelinaa dhanka ibraahim haye maxaan sameynaa arrintu waanaan ka dhignaa waxa la yidhaha dalxiis horta u bedeleynaa dadkan waa inaan tusinaa raadkii oo soo maray ibraahim meeshuu ku dhashay waa inaan geynaa aan ka dhignaa meel dalxiisa waxaan geynaynaa meeshuu ku dhashay nabi ibraahim oo lahay or dalka ciraaq halkaasaan geynaynaa kadibna meelihii oo maray suuriya turkiya falastiin masar ilaa sacuudi arabiya aan geynayna dalka marka wuxuu yidhi dadka waxaan tusinaynaa arrinta ugu dhigayna uu yidhi aan ku hoosgelinaynaa dalxiis marka wuxuu yidhi dalxiis kadibna waanaan sameynaa uu yidhi ururo iyo wuxuu yidhi waanaan sameynaa guddiyo kuwaasoo mataqaanaayo oo hergelinayo waxa la yidhaahdo thaqaafa mise dhaqan iyo mataqaanayo dhaqan iyo caadooyin iyo inaan isku keeno ummadaha inaan isku milmaan meesha wuxuu yidhi waanaan ka abuurnaa uu yidhi biyaad cusub oo lahayo isu dhawaasho iyo jeceel yani dad walaala inaan nahay isku dhaqan iyo mataqaanayo thaqaafada iyo awowgan inuu yahay ibraahim iyo dadku wuxuu yidhi as dhexgelino way hergashay marka waxaa la bilaabay in loo tago waa tanaadi arka waxaa la bilaabay meeshii maaragtaayo in la tago dalxiiska waa kana fidiyaan ma jeedaa iyo halkaana waa gurigii iyo meeshuu ku dhashay ibraahim halkaasna waa meeshii zakariya marka halkaana ku cibaadaystay wadeeniyah waa kacbo islaamana mal asana u hadlay dhageyso way bilaabatay dalxiiska bilaawday dadkii in loo ibraahim intuu ku dhashay intuu mataqaanayo saan waaye xajki xataa waxaa la rabay in la farsameeyo waaye si u socotay waxaa la gaaray 2007 halkaasay bilaabatay arrinta in la hergeliyo si toosa arrintii way hergashay way socotay kadibna markaas u socotay muddo kadib halkaas waxaa imaaday aqalka casni Allah Barack Obama arrintii waa ka helay wuxuu yiri walla qorshaan waa qorshe aad u fiican uu yiri marka wuxuu yiri hal marna sida la sheegayo waa yiri inaan soo boodno ma dhaheen diintan cusub aan bilaabnay arrinta cusub hadda socoto hal qaato ma yiri waa in xoogaa dadku wuxuu yiri mataqaan hoos laga soo geliyo tartiib saas u fahmin haye maxaa yeelay wuxuu yiri muslimiinta kristaanka wuxuu yiri wax walba og yihiin wayna fahmayaan waana fashilmeena arrinta markuu wuxuu yiri si degan tartiib ah loo baahan yahay waxa soo boodnaa galaha magaceeda Hillary Clinton abu wuxuu ruuxa aan iidaa ruuxa ana ka warhaye Hillary Clinton waxay asaastay samaysay guddi oo lahayo ururka nabadda adduunka muntada asalaam alcaalami macnaha ururka nabadda adduunka ee samaysay marka dadkaasi oo ururkaasi 50% waxaa laga dhigay wasiiro inaan xilal ka hayo dalka Mareykanka iyo dad u shaqeeya wakaaladda sirdoonka Mareykanka CIA guddiga kalena 50% waxaa laga dhigay culamo isku sheega oo diimaha saddexda haysto yahuudda kristaanka iyo muslimka ayaa laga dhigay marka dadkii waxay ku tiri dhageysta waxaan ka rabnaa inaad samaysaan asu aruursaan waxa la yiraahdo midayn taasoo ay tiri yani wax oo isku mid ay ka yihiin muslimiinta iyo kristaanka iyo yahuudda waxaa la yiraahday taas macquul maaha maxaa yeelay yahuudda ma aaminsana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu yahay nabi kadalika ma aaminsana nabi ciisa alayhi salaam marka waxaa la yiri maxaan sameeynaa taas macquul maaha waxay tiri taas waa easy waa fudeed horta waxay tiri halaga saaro tiri meeshaas wax umma taqaana quseeyno maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo waxa quseeyay tiri ciisa halaga saaro arrinta waxay tiri halaga soo qaato waxa ku jiro kitaabka tawraadka macnaha nabi muuse wixii ka dambeeyo yaa bal soo qaadanay tiri hanaw muuse halagu ekeeyo arimahan waxay tiri waxa kala soo bixisiin kitaabka tawraadka hay laakiin waxa la yiri muslimiintu waxay aaminsan quraan kristaanku waxay aaminsan bible soo maxaa sameeyna easy way tiri mayo waxay tiri bible-ka iyo quraanka gunha loo dhigo hay noo keenay tiri kitaab cusub oo la hayo kitaabka Ibraahim taas hana loo keenay tiri macnaha arinta lagu soo koobo wax laga soo baxay badi diintan oo tawraadka macnaha kitaabka yahuudda wax laga soo baxay maaragtay halaga dhigo labadan waxay tiri goyn hal iskaga dhigo okay kadib markuu waxa soo hadashay jaamacad magaceeda la hayo Hartford waxay tiri waxa loo baahan yahay arinta in laga dhigo midayn diimaha midayn diimaha maxaa yeelay Ibraahim wuxuu ahaa ay tiri nin Ilaahay oo soo diray Soomaa sida yani aaminsan kulligoodba wadad oo aaminsan Ibraahim inuu yahay nabi Ilaahay oo soo diray wuxuu u socday nabad iyo mataqaanayo barwaaqo iyo maaragtay dadkina isku keeno oo yani culaadaha iyo xumaanta oo baabi'iyo
oo u socday marka aslan waxay tiri risaalada ibraahim waxay ahayd risaalo midayn ah iyo risaalo nabadeeda ahayd arrintan waxay tiri waxa waaye tiri yani arrinta ka dhexaysa carabta iyo yahuudda waxay tiri ha laga dhigo waan ogtahay tiri inay tahay arrin oo u dhaxaysay laba naag oo lisla qabay macnaha ibraahim naagihiisa calayhi salaam nabi ibraahim calayhi salaam xaasaskiisa haajar iyo saara haajar waxay dhashay ismaaciil saarana waxay dhashay ismaaciil marka labadaas naag oo lisla qabay arrin ka dhaxaysay ahayd marka macnaha yani waxay laba naag oo kala maseersan marka arrintii waxay tiri anagana soo gaartay yahuudi iyo carabtiga gaartay taasoo dhalsiisay in mataqaanayo oo dadkan ay qaataan maseerka oo awootooyinkooda iyo yani maaragtayo awoyaashooda awootooyinkooda maseerka inay qaataan arrinta marka waxay waa easy ha laga dhigay tiri inay tahay colaada noo dhaxaysa anaga ayaga inay tahay bis arrin oo laba naag lisla qabay oo maseer macnaa arrinta laga dhigay tiri maseer hay arrintan waxay tiri aslan ujeedka ha ahaado midaynta bariga dhexe in laga dhigo hal kadibna 2017 waxaa imaaday Donald Trump markuu imaaday Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil kadibna 2020kiina wuxuu sameeyay heshiiskaas wuxuu heshiis u dhaxeeyo Imaaraadka iyo Bahrain iyo Israa'iil markaas wuxuu ku dhawaaqay inuu meeshan oo jiro heshiis la hayo heshiiska Ibraahimiya markaas oo soo shacbaxay oo mataqaana ummadaha ay ogaadeen kadib markaas ay dhacday waxa dhacday marka Imaaraadka inay balan qaado inay dhisayso 3 temple macnaha inay dhisayso masaajidkii iyo kaniisadda Yahuudda iyo kaniisadda Kirishtaanka oo hal meel kooda yaalo أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتشييد بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي waxayna qorshaysay inay ku bixinayso lacag gaarayso $10 billion 10 milyan ma $10 billion inay ku bixinayso wayna dhistay waa kana. Behind me is the only place in the world where a mosque, a synagogue and a church are in the same building together. Located in Abu Dhabi is the Abrahamic Family House, and this interfaith complex is dedicated to promoting peaceful coexistence between the three major Abrahamic religions. So Judaism has an active synagogue, Christianity has an active church, and Islam has an active mosque. This is the Jerusalem of the UAE, and it just opened in Abu Dhabi. And for the first time, in this space, three major religions coexist peacefully. Within the complex, there are 3 buildings that have the same harmonious design. The Abrahamic religions, made up of Christianity, Judaism, and Islam. And each one of these Abrahamic religions have their own places of worship. The one world religion. People still think it's a conspiracy while they built a site in Abu Dhabi. oo ugu dambeyntiina laga dhigo diinta oo anaga ku dhaqmi doono oo diinta saxda ah inay noqoto diinta yahuud macnaha anaga waxa la socdaa in la yahuudeeyo. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. taas oo qorshaha hadda meeshan fiiri waa masaajid ku yaal Abu Dhabi salaad jumcaha la tukanayo marka khudbada yaa bixinayo si fiican u fiiri ninkan bixinayo khudbada uu ahaa nin islaam uu ahaa nin yahuudi u khudbeynayo halkan kalena fiiri waa masaajid waxa ka khudbeynayo nin baadiri ah eebo baasha marka soo maleynaysid ma hore jaahilo arintu way hirgashay bilaabatay mar horeyna bilaabatay Abu Dhabi way hirgelisay masaajidadii waxay keentay niman oo xaqaama ah miswadaadada yahuudda gardheerayaashooda ay keenteen kuwii Kirishtaanka la keenay ayaga marka anaga noo bixinayo khudbadihii jumcaha iyo khudbadihii oo khamiis marka hadda si fiican u fiirsana waxa arkaysaa in yahuudi iyo muslimiinta Kirishtaanka isla tukanayeen isku meel ku tukanayeen hal qofna uu khudbeenayo jumca waxa khudbeenayo yahuudiga sabt waxa khudbeenayo muslimka ahadna waxa khudbeenayo kii Kirishtaanka waa la mideeyay mar rabbi laabta kalena waxa loo socdaa in oo la fuliyo oo la dhaqangeliyo qorshaha yahuudda kaasoo ah in yahuudda ay noqoto dawladda kaliya boqortooyada kaliya imbaraatoriyada kaliya oo ka tali doonto bariga dhexe ilaa geeska Afrika ilaa ay wataqaanadii inay qabsan doonto biyaheeda shidaalkeeda gaaskeeda wax walba in ayada matqaan ka tali doonto woona hirgalay marka meeshan waxa waaye waa caqiido oo yahuudda ay leedahay diintooda ku jirto yani waxa ay masayna ku jirto waaye ayaa dhaqan gelinaya caasimadda bariga dhexna inay noqoto Qudus يعني عاصمة يهود هاد إيش يكتين وقدس عاصمة فلسطين أي يهود لسيي تاسبحون نقدون تا عاصمة دي أو بريق الدحي يو قفل بس ده حدا دين هايستو إن ماشي الوقت ديو مرك أرنت واتنا أنا وحنا كسو هاللي سنة كمركو أفر سنة كهر كسو هاللي فير أفر سنة كهر كسو هال أفر سنة كهر لان دريش هدوك معمولو
ayaa hadda ka hor shiray waxay ku shireen inay adduunkan ka dhigaan bilaa diin yani adduunkan laga dhigo bilaa diin bilaa akhlaaq bilaa ogtahay sooma taasay shireen laakiin waxaa la yidhi intaanan adduunka aanan ka dhigin bilaa akhlaaqi bilaa diin kow horta aan samayno farsamo cusub oo dadka maskaxdooda lagu bedelayo maxay ahayd waxaa la yidhi waxaan samaynaynaa sanadka markuu ahaa 1924 waxaana tallaabadiisa ugu horeysay la qaaday oo la hirgeliyey 2020 adduunka waxaa laga dhigi doonaa waxa la yidhaahdo hal diin ma jiri doonto diin islaam iyo diin kristaan iyo diin buuda iyo diin hindu iyo diin yahuuda saddexda diimood oo samada ka soo degatay ayaa la miday doonaa waxaana loo dhisi doonaa hal meel ay ku kulmaan isku arkaan ay ku cibaadaystaan macnaha hal masjid mise hal macbad mise kullu waxay noqon doonaa hal meel oo isku arko hal kitaab hal diin hal meel oo ay dhan ay noqdaan meeshii laga miday lahaa akasoo brother of feel xataa waxaa idin soo qaatay film cartoon oo lahay Samson asoo ka qodbeynayo dhagaxii noo maxamed laga dheelmiyey oo Beit al-Maqdis ku dhex yaalo Qudus ku dhex yaalo Samsons film cartoonkaasna ku caan baxay saadaalinta arrimaha wixii dhici doono Samsons ayaa hadda ka hor saadaaliyay adduunka ay ka dhici doonto waxa la yiraahdo midayn mise macnaha diimaha inay midoobi doonaan diimahaas midoobi doono waxaa arkaysaa ninka liya Samson oo ku dhex jira masaajidka Beit al-Maqdis oo noo qudbeynayo dad markaasi meeshaas isku dhex jira yahuud iyo muslimiin iyo kristaan ayaan soo qaatay 4 sano ka hor brother waxaa arkaysaa Samson wuxuu ku taagan yahay qubata sakhra waxa waaye dhagaxii laga dhelmiyey nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam habeenkii al-israa wal mi'raaj waxaad arkaysaa marka in ninkaani oo dadka u qudbeynayo oo diimaha mideeyay inuu yahay qof u labisan sida yahuud oo kala ah meesha marka maxay tahay maxaa keenay qof yahuudi ah oo u labisan sida yahuud oo kala ah inuu dadkii mideeyo diimihii inuu mideeyo isku keeno oo ka dhex hadlo oo ka dhex qudbeeyo Beit al-Maqdis taasna maxay ku sheegaysaa maxayna ku cadaynaysaa حتى وحدين كان سيد دينته لو مدينة يوحي دون وادين كان مركا أرنتا علماء الإسلام حتى وادين كان ويجب أن نحذر من بادرة بدأت تفوح رائحتها الكريهة ألا وهي ما يسمى بتوحيد الأديان dadka matqaana xataa oo loo adeegsanayay in arintaas dhaqan galiyaan waa idin keenay wasiib Yuusuf ugu horeeyay hadda qaba kansarka oo dhimaraw waa idin keenay wax dhan waa idin tusiyay 4 sano ka hor hadda markana leeyahay Soomaaliland baa lagu dan leeyahay goorma ka soo hadalna fiiri marka arintan waxa waa brother arin oo siyaasad ma aha heshiis siyaasadeed ma aha heshiis ganacsi ma aha waa heshiis diimeed marka qofkii oo qaato arintan la hayo Ibraahimiya oo yahuudoobe taasna waa xaqiiq macna adiga waxa diyaar u tahay inaa qaatid diinta yahuudina inaa qaadatid diyaar u tahay aatana brother culimada islaamka saana yiraahdeen culamadayna waa weyna islaamka marka in talfiiq lagu sameeyo iyo tawfiiq oo la yiraahdo diimuhu waa heshiis wala wada daliishan kara waa wada xaq waa wada samaawi waa waxyaabaha hadda ummadda lagu luminayo baadilka dadka laga iibinayo ee loo xayeysiinayo ayaa ay ka mid yihiin macnaha maaha wahaabi iyo qaduusi iyo ibraahimi iyo maaha culamadayna islaamka mar hore waxaan digniinta matqaan gormeel daray culimada islaamka ay direen matqaan gormeel digniintan waa 2005 21 sano ka hor ee culimada islaamka ka hadleen ma fahanteen marka idinka dhibkiina wuxuu yahay anna alxamdulillah horta ilaahay wuxuu tusiyay adi kala hadlay 4 sano iyo 12 bilood iyo 20 cisho ka hor macnaha 5 sano ka hor waa kan wuxuu soo qoray 4 sano soo qoray kaliya marka dhibkiina wuxuu yahay qof oo xanuunsan oo diin aan lahayn oo waalan kuku aadin imaanayo idin fatwoonayo waska qaadaysan waa qof ka buuxdo qabyaalad marka idinka dhibkiina wuxuu noqday qabiil in oo maartayo lilku gaaleeyo qabiil ina matqaana oo aabudaan oo qabiil oo noqdo qadiyadiina wax kale fahmaysiin aan leedihiin malaha qabiil waxaan ahayn ka xaawiye marka waa yahuudoodane yahuuda noqoteene ka xaawiye taas waxa ku cadeynaysa maanta sawirada aan aragnay oo maanta halkaas ka dhacay wallahi waa wax laga yaqsiyoodo waa wax la laba marka walaalaheen ma dhihi karnay dadkan falaashadan Soomaaliyeed oo Soomaalida sheeganayo ku sugan waqooyiga galbeed ee Soomaaliya waa falaashadii oo Etoobiyaanka oo halkaas deganaa oo sheeganay inay yihiin dad Soomaali islaam isaaqa wallahi waa beentoodan aysan ahayn marka waa aragnay maanta saan inaan noqotaan ya maanta heer waxa gaarteen gabar oo xijaab wadato oo qamaarka astaanta islaamka wadato inuu yahuudi oo ka feedo oo dhawaa kanadi waa inay kiseen
ma faa hortay ku niikiseen waa idinka niikisiyey gabdhihin wejigaa ka fiiday hadda qamaar le lama rooyi aan laska qaado baratoon dharkaadi ka siiba marka heerka inaad gaaraysaan lasma lahayn way dhici doontaa waana weyna dhacday marka u diyaar garooba mar dhow inaad dhahdaan diinta aad qaadataan haddaa bilaabow siinba inaad u dhaqantaan aad u hadashaan sida yahuudoo kale idinkoo marka ka raadinaya waxaas hadal hayn iyo saamayn iyo mataqaana view laakiin tan waa wax idin lala qoray way gashay diibaankiina maalin shalay doontiin wallaahi alcadiim uqsum billahi alcadiim ma sha Allah maalin shalay doontiin wallaahi marka dadkan oo idin fatwoonayo oo bilaa dhaqanka ah oo walwaalan waxa ka qaadaysiin wuxuu iska dhigaa nin caalim oo khabiir wax walba yaqaan wax oo yaqaan ma laha wax oo fahansan yahay ma laha waa nin ujeedkiisa iyo aragtidiisa inuu kusoo kooban tahay qabiil iyo inuu ka dhaxalo social media wax qiimada dadka uu sheegayna ma laha marka dadkana lagu adeegsado jaahiliinta ah maskiino maskaxda laga dhaqo wallahi brain wash lagu sameeyay dad cawaana lagu adeegsooya waxbaana kala ogeyn wallahi waa qasarta walaalkaygiyo wallahi waa ka xumaa waa qasarta wallahi waa qasarta hadaad bo dadka noocan cawaanta saameyn ku yeesheen warkooda qaadaysid wallahi waa qasarta isbadbaadihay markay ku soo socotay naga taga